ilaa hadda waxaan isku dayay inaan bal jimco waliba joogteeyo sidaan u wadi lahaa hal article oo aan ganacsiyada soomaalida ku qorayo. Marka badanaa soomaalida waxaa isku dhex qaldamay yaa hal abuuro ganacsi ah iyo yaa hal abuuro ganacsi ahayn. Marka taasina waxay keentay in qof waliba oo mataqaanaa markaas of course talentiga ama talentigan hal abuurnimadu waa dabcan waa sax dadka researchka ku sameeya ama baar waxay yiraahdaan waa xikmad ku beeran qof waliba oo adduunyada dusheeda joogo, laakiin haddana sida looga faa'iidaysto ayay ku xiran tahay. Haddana dhinaca kale marka laga eego sidaas sax maaha, oo waxaad arkaysaa qof kule anugu hal abuurnimo ganacsiga ugu jirta haddana aanan ku guuleysanaynin barnaamijkaas. Marka koley waxaan isku dayay waqtiga kooban awgeed inaan soo yelo kooban yaa hal abuuro ganacsi ah iyo maxaa lagu garan karaa. Hal abuuro ganacsi badanaa waxaa ah qofka awood u leh in uu ogaado dhibaato ama baahi suuqa ka jirta. waa inuu uu lahaada sifahaas. Marka qofkaas leh indha-dheerida ama aragtida fog ee uu ku ogaan karo baahi suuqa taalo, qofkaas la dhihi karaa waa hal abuuro ganacsi. Qofkaas isla markaa markuu ogaado baahida inay jirto haddana u keeni kara xal, baahida xalkeedina abuuri kara. Qofkaas oo haddana khatar qaadan kara xalkaas, baahida markuu arko xalkana arko kadibna khatar u gelin karo hantidiisa, lacagtiisa iyo waqtigiisa, lacagtiisa iyo resource kale wuxuu haystaado markaas. Marka saddexdaas sifa haddaad ku aragtid qofkaas la dhihi karaa waa qof leh aragti hal abuur ama ku fiican hal abuurka ganacsiga. Waxaa jira markaa qof waliba oo markaa haddana baahida suuqa taala arki kara ee xalkeedana keeni kara, markaana hantidiisa u hori kara waqtigiisa. Ma dhihi karnaa hal abuuro ganacsi wey qofkaas? may weli waan dhihi karnaa sax, laakiin hal abuuro ganacsi guulaysta wey ma dhihi karnaa, ama guulaysanayo wey ma dhihi karnaa, oo wuxuu leeyahay raadkii ama aragtiyihii lagu guulaysan lahaa. May haddana waxaad ka fiirisaa markaa saddexdaas qofkaas ku aragtid oo tiraa qofkan uu leeyahay hal abuur ganacsi, waxaad u imanaysaa keebaa guulaysta ahayn. Marka guulaystaha waxaa lagu gartaa isaguna wuxuu leeyahay 4 calaamadood oo kale oo lagu garto. 4taas calaamadood ayaa waxay yihiin, haddaa afka ingiriis ku sheego, persistence, commitment and continuity. waa inuu qofkan leeyahay shaqada joogteen, isla markaana shaqadaas uu hayo joogteenayo uu wadi karo. Marka wadida iyo joogteenta waxay ku kala duwan yihiin. marna qofka rabitaan uu ku wadayo shaqadaas, marna qofkii example shaqadu imanaya aroortiisa wixii businesskiisu furaya isagoo cabitiidaya iyo imanaya isagoo wuxuu imanaya rabitaan badan ku jira, laakiin dantii duruufta ay ku qasabtay. marka kaa ma noqon doono hal abuuro ganacsi ama qof karo. marka wadida iyo joogteenta waxay ku kala duwan yihiin. marna qofka rabitaan uu ku wadayo shaqadaas, marna qofkii example shaqadu imanaya aroortiisa wixii businesskiisu furaya isagoo cabitiidaya iyo imanaya isagoo wuxuu imanaya rabitaan badan ku jira, laakiin dantii duruufta ay ku qasabtay. marka kaa ma noqon doono hal abuuro ganacsi ama qof hal abuur ganacsi leh oo guulaysto. la qabsasho, suuqa isbabeddelaya, nolosha isbabeddelaysa, maalmaha isbabeddelaya, duruufaha isbabeddelaya. qofka la qabsi inuu leeyahay duruufaha isbabeddelaya la qabsan karo. sidoo kale qofka inuu leeyahay hab fikir istiraatiijiyadeed oo qaab istiraatiijiyeysan uu fikri karo, iyo sidoo kale inuu leeyahay awood oo hadday khatar timaado uu ku maamuli karo. marka afartaas aragtiin, haddii afartaas calaamadood haddaad ku aragtid qofkaas waa qof hal abuur ganacsi la guulaysan kara. haddaa saddexdii sifo ee aan sheegnay hore qof uu leeyahay oo qof hal abuur ganacsi leh. marka hal abuurka ganacsigu waa waxaasa loola jeeda horta hal abuur ganacsi. marka intaan wax qoraynin oo arkayna dad badan oo iyagu mataqaanaa annagu hal abuur ganacsi baa leenahay, laakiin aan hal abuur ganacsi lahayn. waxaan ku daray maalmahan dambe waxaa batay oo dadka Soomaalida dhexdooda ku batay nin waliba oo ganacsi inuu yeesho rabo. waa very good, way fiican tahay, waa himilaya hadidiila fiican. laakiin haddana yaa ganacsiga wadi kara, because ganacsi markaad yeelatid oo ganacsi samaysid oo furtid oo mataqaanaa ku guul daraysatid, guuldaradaas dad badan saameyn ku yeelan doontaa. inta kugu hareeraysan saameyn ku yeelan doontaa, inta kale soo socotay saameyn ku yeelan doontaa. in mayana intaas sifa aan soo sheegnay lahayd iyadana damage u geysan doontaa, way dhaawici doontaa qalbigooda iyo aragtidooda iyo fikradooda. kuwa lacagta u dhiiban lahaana iyadana nafteeda way xumeyn doontaa. marka dadyaabo baa jira hadda ka ganacsada tababarka bini'aadanka, tababarka dadka iyo mataqaanaa iyagu business ka sameeya. dadkaas businesska ka sameeya iyagu marka uma kala aaba yeelaan yaa kartida iyo aqoonta ilbaxnimada ee ganacsi ku wadi karta leh. laakiin qof waliba halkaas si shaqadaadkeeda haysta uga qaata, waxay ku yiraahdaan niyahow ima xarunteeda aan ku tababaraysa ganacsigeeda ama ganacsada noqon lahayd. waa sax, qofka inuu tababar xirfad iyo wixii ka maqan la siiyo, laakiin waxaan jeclaan lahayd in lagu daro waxaana haddana community-ga daawac ku keenay oo kaliya tabinin inta wax isku darsatay, inta wax ku darsatay, inta maal gashtay, inta la maal gashanayo. one example aan kusoo xiray wax yar waxaan gobol xaar u sameynaya oo muxuu yahay hal abuuro ganacsi. marka gobol xaarkaas waxaan u imanaya adduunyada waxaa la yidhahdaa dadka ku nool 10%
yaa ganacsiyada adduunyada ka jira iska leh boqolkiiba 90na ganacsiyadaas ee boqolkiiba 10 dadka leeyihiin iyo ku hoos nool yihiin ay masaariiftoodii noloshooda ka helaan hadda statistics waxaa jira oo ay sameeyeen Forbes oo ay sameeyeen 2017 wadamada adduunyada hadda hadii la wadamada adduunyada ugu xoog weyn ugu quwad badan ugu siyaasad badan ugu hoggaan u ah Yurubtana Ingiriisku hadda uu ka baxaya hoggaan u ah nimanka kale ee reer galbeedkana Mareykanka hoggaan u ah marka nimanka quwadihii hore ahaayee hadda China waxa ka dabiimidi awoodii hore xadaaradda ilbaxnimadii hogaaminaya adduunka waxaa la leeyahay hadda Ingiriiska kale ama United Kingdom waxaa la leeyahay 6 milyan oo qof ya business leh halka Mareykanka ay ka leeyihiin 30 milyan iyo 500 waxaa tiraa 30 milyan 500 kun oo qof halkii ka leeyihiin business marka u qayb ma percentage population dadka ku nool 329 kun la yiraahdaa Mareykanka 329 kun iyo UK ku nooshahay mataqaanaaye 68 milyan oo qof marka isaga percentage waxa ku soo baxay 10% marka taas waxay ku tusinaysaa macnaheedu haddii dadka oo dhan wada hal abuurkooda ganacsi ee ku dhex jiray la sheegay network ku dhex abuuran uu qarxi lahaa tirada dadka ganacsiyada la yaa 10% ka badan lahaa tirada dadka shaqaalaha ama ku nool ganacsiyada waxa laga soo saarana boqolkiiba 90 way ka badan lahaa way ka yaraan lahaayeen marka waxay tusinaysaa qof waliba hal abuur ganacsi haddii si abuur ah oo Ilaahay uu abuuray ugu dhex nooshahay lafteeda ama uu haysto haddana guushi ganacsiga haddii dadka oo dhan wada hal abuurkooda ganacsi ee ku dhex jiray la sheegay network ku dhex abuuran uu qarxi lahaa tirada dadka ganacsiyada la yaa 10% ka badan lahaa tirada dadka shaqaalaha ama ku nool ganacsiyada waxa laga soo saarana boqolkiiba 90 way ka badan lahaa way ka yaraan lahaayeen marka waxay tusinaysaa qof waliba hal abuur ganacsi haddii si abuur ah oo Ilaahay uu abuuray ugu dhex nooshahay lafteeda ama uu haysto haddana guushi ganacsiga ma keeni karaan because duruufta taala awgeed intaas kaga bixiyay waxaan qeexayay wax ka sheegayay